وغرين ملكية ماموس وين بيتهاي إن عاوة إذنكم مرتقاضو مناسبة قرن كدل عيسى قصرك مدحتوية جمهورية الصوماليلاند mar labaad waxa ii sharafha inaad ku hambaliyeeyo iska sanad guurida 26 ee madaxbannaanida Soomaaliland mudane marwooyi sanadkan waxaanu madaxaan nagu habsatay abaar ba'an waxyeello weyn u geysatay dadkii dunyadii aynu dhaqanaynay iyo degaankii aynu ku noolayn intaba daraasad hordhaca oo la sameeyey waxaa lagu xaqiijiyey in qiyaas ahaan 70% xoolihii noolaa ay dhammaadeen waxaa markhaati madoona in xoolaha noole ay yihiin dhabarta dhaqaalaha dalkeenna maadaama 9% ay ka yihiin dakhliga dalka gross national product markii dad badan ay xoolihii ka baxeen waxaa dantu ku qasabtay inay ku kaxiroodaan magaalooyinka shaki kuma jiro in nolosha magaalada ay ku tirsan tahay miyiga reer miyiga iyo reer guuraaga sidaa darteed waxaa dhaawac iyo dhiig bax inagu yimid mudanayaal iyo marwooyi inkastoo ay roobkii inoo da'ay qayladhaantii abaartuna aynu ka nasanay haddana waxaa dhaba inay dhaxalsiisay dhibaato weyn oo u baahan gurmad degdeg ah iyo qorshe aynu kaga soo qabanno tabaalihii abaarta mudanayaal iyo marwooyi qoysaskii aynu xilliga abaarta caawinaynay waxay soo doogeen iyagoo badi caydha xeradii xoolahana uga buuxi jireen ay madhan tahay oo cuud iyo calaf kalena aan haysan haddaba markaan arkay duruufta dalku ku jiro waxaan garwaaqsaday in loo baahan yahay in mar labaad aynu samayno gurmad qaran sidaa darteed waxaan u beddelay dabaaldeggii iyo dabaashaadkii 18 May oo ahayd munaasabaddii qarankan qaadan ururin ballaaran aynu ku taaganno dadkeenna tabaalaysan si looga badhadhaliyo mashruuca qiimaha badan waxaan magacaabay guddi qaran oo ka kooban noocyada kala duwan ee bulshada culamaa'uddiin ganacsato ururada bulshada rayidka ah iyo xisbiyada mucaaradka iyo xubno ka tirsan xukuumaddaba guddigan waxaan u xil saaray qaaran ururinta ballaaran ee ka bilaabanta dalka oo dhan maanta oo ay bishu tahay 18 May ilaa 26 Juun 2017 qaaran ururintan oo socon doonta muddo 45 cisho ah waxaa lagu fulin doonaa mashaariic lagaga soo qabto abaaraha kuwaasoo ay ka mid yihiin 1 in lagu celiyo dadkii ka barakacay degaankoodii 2 in loo iibiyo xoolo nool dadka caydhoobay gaar ahaanna kuwa ugu jilicsan 3 in la qaado in la qodo ceelal biyood iyo balliyo biyaha socda lagu qabto 4 in la xidho seerayaal badan oo lagu baxsado xilliga jiilaalka 5 in dadka aan awoodi karin laga caawiyo qodaalka beeraha xilli roobaadkan anigoo ka dabqanaya dareenka dadkayga isla markaana ka duulaya go'aankii aan qaatay waxaan xalay u yeedhay qayb ka mid ah ganacsatada waaweyn ee dalka waxaan jecelayn halkan uga mahad celiyo shirkadaha daabshir group Telsom group Sam Cable iyo Berbera Oil Group oo ah shirkadda shidaalka dalka keena shirkadaha shidaalka dalka keena qarankaas
iyo taageeradii weynayd ay ugu deeqeen dadka walaalahooda. sidoo kale waxaan ku bogaadinayaa ganacsatada qarankan kaalinta iyo doorka ay kaga jiraan dibudhiska dalka, adkaynta nabadgelyada, kobcinta dhaqaalaha iyo daryeelka bulshada. dhinaca kale waxaan dhammaan gobollada dalka laga bilaabay olole qaadan ururin kaasoo muujinaya sida ay bulshadu isugu tiirsan tahay isla markaana isugu tashatay. waxaan uga mahadnaqayaa dhammaan dhallinyarada mutadawiciinta ahayd volunteers ee hawsha qaadhaan ururinta gobollada oo dhan ee u laban adeygay. haddaba duca qabayaal, waxaan caawa munaasabadan idinka codsanayaa inaad si mugla uga qayb qaadataan qaadhaan ururinta ka soo kabashada abaaraha. waxaan idinka rajaynayaa inaad sidai caadada ah idiin ahayd aad maalkiinna badhgoysaan. alleheen tuubta toosan hayna waafajiyo. alleheen boggeenna iyo beerkeenna balcadayso maliyo. alleheen ha inoo wada naxariisto. alleheen aafooyinka abaaraha iyo beladaba haynala dulqaado. aamiin aamiin.